waddadu way dheer tahay abaartuna way soo kordhaysaa gobolka togdheer waxaa ka jira abaaro aad iyo aad u ba'an abaarahaasi oo keenay barakac iyo biyo la'aan waxaan u kuula gelaynaa sida abaartu u saamaysay reer guuraaga gobolka togdheer waa gobolada ugu ballaaran Somaliland waxaa kaloo ku xidhan safari area ama hawd oo ay ka jiraan biyo la'aan badani waxaan baadi goobaynaa sida abaaruhu u saameeyeen dadka reer guuraaga ah markii aanu soconay 90 kilomitir ayaanu aragnay reer kaligii meel degan waxaan isku daynay inaan u kuura galno nolosha ay ku nool yihiin adeero dib walahi biiraanta waa jirtaa wana saamaysay kowdhin magaaladana waa naga durugsan tahay waxaan ku gaadid biyaan kaga soo qaadnay ma biyo kale noogama yimaadaan waa sida marka biyo la'aanta saamaysay imika wax biyo ama haysan guriga weydii yaalin hadda waxa afka loo cabo waa noo yaala way wax dhaafsiisan oo kale nooma yaalna waa maanta horta marka hore biyo la'aan wax ka xumi ma jirto biyo la'aan ba dadkan haysataa haddii biyo la waayana waxa imanaysa waxa biyo ugu dhow burco ayaa ugu dhow meel kale oo burco ugu dhow oo ceel kale biyo laga helayo oo ka dhow ma jirto mana gaari kara burco lama gaari karo ma gaari karto haddii biyo la waayana dalool ma jirto dhimashadii baa xigtay dadka ayaa xigtaa maanta markaa waxa lagu habsatay biyo la'aanta lagu habsatay dadkiina saas u ooman yahay gobolka togdheer oo gobol aad u baaxad weyn gobolka labaad ee Somaliland ugu weyn isla markaana degmaha marka burca laga hadlo waa degmada ugu weyn imikana guud ahaan 6 gobol ee hore Somaliland ba marka xaaladda abaarta la qiimeeyo xagga baahida tahay ay isugu jirtaa gobolka togdheer guud ahaan waxa ka jira biyo la'aan baahsan inta burco hoos timaada ee maalin kasta biyaha loo geeyaa waa ilaa 160 degsiimo waxa jira 70 ood weynaa iyo dhowr iyo 30 buu hodla intaas oo dhan 90% waxa biyuhu uga tagaan waa burco sawirka ugu xanuunka kulul ee abaartaasi ay bixinayso bal sawiro hooyo caruur agoona haysata oo aan cuud haysan oo guri cidla joogta oo qofkii awood iyo dhaqaalaha lahaa uu booyad isagii waayay oo haraad la dubayowday oo maalinba qoys bariyaysa ama halka ay joogaan cid uu gargaarta iyagii meesha ku sugaya isla markaana ay nafaqo darro iyo cunno la'aan ay u raacday dadka ugu horeeyay geeri iyo nolol u dhaxeeyaan ay dadkaas yihiin isla markaana dadka codkooda la maqlayaan hay Cabdirasaaq iyo caruurtan oo ah 15 caruur ah oo halkan degan ayaan kula kulanay waxaan deganaa muddo 3 bilood Cabdirasaaq bal xogaal naga sii abaaruhu sida idin saameeyeen abaaru aad bay noo saameeyeen sida noo saameeyeen waad aragtaa badda dhulku inuu xaabkiisa iyo wixiisba dhamaadeen ma garateen way markaa biyo la'aan imika biyo la'aan iyo cunto la'aanba way ugu darantay xagga biyaha ka waran biyuhu waa la soo shubtaayo biyaha qaraar ee burca la soo shubtaa deegaankan intee lag baad deegaanka markii hore ilaa 500 oo qoys ama 600 oo qoys meelahaas bay deegaan jirteen inta balanbaal iyo aagan in markaad imika adigu biyo la'aantan ku hayso bal ka waran dhaankii maxaa dhacay maanta dhaankii waa kaasoo maanta uu dadan yahay biyihii baa ka go'ay reerka marka biyihii waa weli waan laanahay booyadii baan laanahay kayu bay ku jiraan booyadii halkan waxaan ku hayaa 15 caruur ah biyana weelaayeen xoolina waa kuwaasoo iska baqteeyaan ma lahaayaan waxay daaqaan iyo waxay cunaan toona marka biyaha la'aantan markaasi ilaa ay goormay in go'aankan ugu ahayd biyo la'aantan ilaa waxay nagu ahayd 3 bilood iyo bar bay nagu ahayd waxa jirta xaalad biyo la'aana cunto la'aana dhar la'aana xaaladdan oo kalena waa xaaladii loo oran jiray ilaahay idin naxariistay dadku ha isku naxariistaan mana xaalad quro ay dawlad quro wax ka qaban karto ama ganacsato wax ka qaban karto sidoo kale waa xaalad dhalinyaradu ku dhoodo ay qayb fiican ka qaadan karto hadda waxaan wadnaa dadaalo ay dhalinyarada iyo haweenka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshadu ay abaarahan qayb ka qaadan lahaayeen Zainab looga warramo shan inta joogtay kaaga warramo meesha 2 sanadood baan ceelkan hayay mishin walihi ceelkan baan ahay labadaas sanadood aan hayay wali ma arag makhluuqa
iyo abaarta maanta saa ay tahay maan arag halkan imika ceelkan booyadaha aynu uga dhandhaamin jirnay tuulooyinka nagu dhow waa ka joojinay waayo dadkii magaalada deganaana gelinka dambana waraabina dee gelinka horan waad aragtaayoo dadka iyo xoolaha baktiyayaas wata de markaa waxaan leenahay ummadda reer somaliland waaba dadkan abaaraysan iyo dadkan dhibaataysan iyo xoolahan hal la eego annagu waxaanu biyahay saan ugu shubaynaabuu naga go'aa haddana waanu istaadhnaa sidii baan ugu wadnaa dadka iyo xoolahaas waa isla bakteeya dee saasaanu ka codsanayna dowladda somaliland dee geelashan imika ka cabba ceelka anigu geel ma wada inanka ceelkaan laakiin geelashan ceelka yimaadaa dee tiradooda lama koobi karo ma garta casarku ku imanaya duhurku ku imanaya wuu soconaya wixii biyo baad toona ma hayo marka waxaan leenahay ummadda Soomaaliya war biyo baad dadkii xoolaha lala soo gaaro ismaaciilow geela xageed ka keenta waxaan ka keenay hawd dhexe maxaad intee leeg bad wada qoliga soddon ka waran abaar ismaaciilow abaariyo ahdo wax halkan waa wax abaariya kharaad way ka waran baadka iyo nolosha iyo dadku siday ahaayeen iyo waxa ingu daran ma baad ma jirin dadkii biyaalaan inta taayare waxaanu keenay taarkan laf rigeela way markaa cawsbu ka cuna dhulkii xaggaanu kan wax baadoo jiri ma jirin qof kasta oo muslim ah oo u damqanaya walaalihiisa ay taabatay abaarta biyo la'aanta iyo dhibaatooyinka kala duwan inay u naxariistaan oo ay ka qayb qaataan baaqa loo soo jeediyey ee wax lagu qabanayo sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inagu booriyey inaynu isu naxariisanno rasuulku sala allahu calayh wasalam xadiis buu tilmaamay macnihiisu yahay ilaahay wuxuu u naxariistaa addoommada xaggiisa kuwa isu naxariista gaar ahaan waraabka iyo biyaha fadli aad iyo aad u fara badan baa ku soo arooray inaad qof walaalkaa oo haraadan aada waraabiso ama aad ka qayb qaadato cid waraabinaysa aada wax ku darsato fadli aad iyo aad u fara badan baa nebigu calayhi salaatu wasalaam u sheegay waxaa fadligiisa ku tusaya rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu inooga qisooday 2 qiso oo tilmaamaya fadliga arrinkaasu leeyahay nin waxa weeyaan haraaday dabadeedna ceel ku soo baxay ceelkii ka soo cabay markuu ka soo baxay buu ay arkay ay haraadan oo haraad daraadii carabka la lulaya intuu dib ugu noqday ceelkii buu biyo u soo qaaday oo biyo siiyo waraabiyay ilaahay baa u dambi dhaafay adoonkaas rasuulka la weydiiyay calayhi salaatu wasalaam ay la waraabiyay baa ajar lagu helaya nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam beer kasta oo qoyan ajar baa ku jira yani cid kasta ama xayawaan ha noqdo ama aadama ha noqdo aad waraabiso noocu doonaba ha noqdo ajar baa ku jira xadiiskan joogna waxa weeyaan waa xarfadii war ibraan waa u jeedaan oo waxa weeye way maratay marka de waxaan halkan dadka uga sheegaynaa abaartu adiga arko meel maanta magaalo biyo leh oo biyaba ku jiraan ma jiraan abaar xun baa dadka hayso biyo la'aantaasi waa biyo la'aan baxsan weeyaan marka dadka loo soo gurmado halkan aan ku suganahay waa barkadaha ka mid ah biyaha lagu shubi jiray biyahana lagu kaydin jiray waad aragtaa imika oo way maran tahay dadku waxay cabaana haba yaraatee ma haysto balli weyn way ooman tahay marba mar ka dambaysana dadku way ka sii barakacayaan marka loo eego meelihii hore maxaa haddaba inala gudboon dadka daawanayo in dadkaasi loo gurmado lana caawiyo inta la caawin karayo waayo biyo la'aani waa nolol la'aan